habeen magaalada Trujillo wiil yar ayaana cashirkiisa iskuulka ku akhrisanaya baallaha nalka hoostiisa. Victor waa 12 jir, gurigooda koronto kuma jirto, wuxuuna ku qasbanaaday inuu wadada cashiradiisa ku akhristo. toddobaadyo kadib muuqaalkan, Victor waxa uu soo dhaweynayaa ganacsade u dhashay dalka Bahrain, Yaquud Mubaarak. Ganacsade Mubaarak ayaa muuqaalka Victor baraha bulshada ku soo arkay, wuxuuna la tacajubay dadaalka wiilka yar, isagoo go'aansaday inuu gurigiisa iyo iskuulkiisaba u dayactiro. waxaan doonayaa inay helaan fasal cusub, qol kombiyuutarro ardayda cusub Victor awadid. sidoo kale waxaan dugsigan u samayn doonaa qorshayaal ka dhiga iskuul fiican oo ardayda oo dhan lagu caawiyo. Master Mubaarak wuxuu sheegay inuu soo maray caruurnimo adag, uusanna doonayn in caruurta sidii Victor ay dhibaatooyinkaas arkaan. waan ku faraxsanahay inuu gurigayga iga caawiyo, ayuu yiri Victor. waa arrin iga farxisa. waad ku mahadsan tahay inaad naga caawisay dayactirka iskuulkeena. sidoo kale ganacsaduhu wuxuu Victor siiyey bashqad ay lacag ka buuxdo, wuxuuna sheegay inuu soo laaban doono marka la dhameeyo dhismaha ku socda Victor gurigiisa iyo iskuulkiisaba. ugu dambeyn, Victor uma baahnaan doono inuu wadada wax ku akhristo mar dambe.